dekada Muqdisho aroortii hore ee saaka waxaa ku soo xirtay markab laga leeyahay wadanka Indonesia waxaana uu siday raashin gargaar ah oo loogu talagalay in arrimaha bini'aadanimo ee dalka looga qayb qaato samata bixintooda. Raashinka ayaa ka kooban 50 tan oo bariis ah waxaana uu ku jiraa 40 konteenar oo dusha sare ee markabka saarnaa. Axyaa Udiin gudoomiyaha hay'adda Acti oo raashinkan ku wareejisay wasiirka gargaarka iyo guddiga abaaraha ayaa sheegay in deeqdan iyo kuwa kale oo la mid ah ay keeni doonaan maalmaha soo aadan. Semoga persahabatan Indonesia Somalia akan dimulai dari saat ini. waxaan rajeynaynaa kaalmadan aan keenno maanta inay anfici doonto dad badan oo dhibaataysan oo abaaraha iyo roob la'aanta Soomaaliya ka jirta ay saameeyeen. insha Allah sidoo kale waxaan rajeynaynaa inay noqoto tan ee maanta ka bilaabato xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Indonesia mid sii socdo walaaltinimadooda saaxiibtinimadooda maanta laga bilaabo. wasiirka gargaarka ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Maryam Qaasim ayaa sheegtay in deeqdan dhawaan la gudagali doono qaybinteeda iyada oo la geynayo deegaanada dadka dhibaataysan ay ku sugan yihiin. waxaan uga mahadnaqaynaa walaalaheen reer Indonesia oo isu xilqaamay inay wax iska soo ururiyaan oo dadka walaalahood oo Soomaaliya abaaraha ay ku saameeyeen inay ugu deeqaan raashinkan ay noo soo direen. bixinta deeqdan ayaa timid kadib markii bil ka hor xubno ka socda dawladda Indonesia ay la kulmeen guddiga abaaraha iyaga oo ka dhageystay warbixin ku aadan heerka abaaraha ee Soomaaliya iyo meelaha gargaarka looga baahan yahay. Calaadan Muumin, Goobjoog, Muqdisho.